بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan go'aamo ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble markii uu qiimeeyay soo laba kacleynta xanuunka COVID-19 markii uu dib eegis ku sameeyay go'aamadii hore ee xukuumadda isla markaana tixgeliyay talooyinkii iyo soo jeedimihii guddiga qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta xanuunka COVID-19 si looga hortago loola xakameeyo faafidda xanuunka waxa uu ra'iisul wasaaruhu caawa soo saaray go'aamadan soo socda dhammaan goobaha waxbarashada kuwa dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay sida iskuulada iyo jaamacadaha waxaa la xidhi doonaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanta berrito oo bishu ay tahay 3 bisha saddexaad 2021 waxaanay xidhnaan doonaan ilaa 17 Maarch 2021 qof kasta waxaa waajib lagaga dhigay inuu qaato afxid ama mask marka uu joogo dhammaan goobaha la isugu yimaado sida suuqyada masaajidada gaadiidka dadweynaha goobaha ganacsiga iyo meel kasta oo dadweyne isugu yimaado xafiisyada dawladda si ku meel gaar ayaa loo xidhayaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanaysa 3 Maarch oo ah berrito shaqaaluhuna waxa ay ka soo shaqayn doonaan guryahooda marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka isu socodka caasimadda dalka iyo gobolada waa la dhimi doonaa muddo 2 usbuuc laga bilaabo berrito bisha ay tahay 3 Maarch ilaa iyo 17 Maarch gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaadiidka dadweynaha iyo kuwa khaaskaaba si caadi ayay u sii socon doonaan gudaha magaalooyinka waxaana waajib ah dadka saaran ee rakaabka ahi inay qaataan afsaar ama mask ayna hubiyaan kala fogaanshaha bulshada waxaa muddo 30 maalmood ah la joojiyay xafladaha gaar ahaan kuwa aroosyada kuwa kale la isugu yimaado sidoo kalena waxaa la mamnuucay goobaha caweysyada ee habeenkii dhalinyarada ku kulanto mootooyinka bajaajleyda basaska waxaa loo ogol yahay inay qaadaan rakaab waana inay dhowraan nadaafadda dadkuna kala fogaadaan qaataanna afxirka ama maaska kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyay muddo bil ah isu soo baxyada khaaska ah ee haysta ruqsadaha waxaa ku xiran shuruudaha soo socda in dadka isu soo baxaya isu jirsadaan 2 mitir iyo in qof kasta oo imanaya isu soo baxa uu soo qaato afsaar ama mask goobaha ciyaaraha garoomada ciyaaraha iyo goobaha jirdhiska waxaa la hakinayaa iyagana muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanaysa berrito bishu ay tahay 3 kulamada tacsida aaska iyo qabuuraha waa inaysan ka badnaan dadka tegaya 10 qofood iyadoo la hubin doono kala fogaanshaha bulshada iyo qaadashada maaska wasaaradda caafimaadku waxay adkeynaysaa ilaalinta fayadhowrka guud ee goobaha dadku isugu yimaadaan sida suuqyada masaajidada isbitaalada bangiyada iyo goobaha la midkaa si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus waxaa waajib ah in dhammaan dadka adeega u soo doonta ama jooga goobaha caafimaadka ay mar kasta xidhnaadaan afsaar ama mask sida isbitaalada iyo farmashiyada waxaa waajib ah in dhammaan dadka ka adeeganaya goobaha ganacsiyadu sidoo kale ay qaataan mask dadka dhoofaya ama dalka soo gelaya xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aamada qof walba oo imanaya ama ka dhoofaya dalka waa inuu si joogta u qaataa afxidhka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus waa in dadka safraya ay maraan baadhista xanuunka COVID-19 iskana soo baaraan goobaha loo asteeyey baadhista si ay isaga hubiyaan inaysan qabin xanuunka COVID-19 ka hor 72 saacadood inta aysan safrin qof aan wadan shahaadada baaritaanka COVID-19 looma ogolaan doono inuu soo galo dalka qof aan sidan negative COVID-19 certificate waxaana waajib ah qofku inuu wato shahaado soo baxday muddo 72 saacadood gudahooda marka uu dalka imanayo shirkadda diyaaradaha waa inay fariimaha ka hortagga COVID-19 daabacaan una sharaxaan rakaabka si loo ilaaliyo fayaqabka inta lagu guda jiro duulimaadka dhammaan dadka ka imanaya
dibadda dalka waa inay si iskooda isu karantiileeyaan muddo 7 maalmood isla markaana maraan tijaabada shaybaarka ee PCR marka uu dhamaysto muddada karantiilka. arrimaha la xiriira kala bedelka ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidamada ilaaliya xarumaha UN-ka waxaa la farayaa inay raacaan habraaca UNGU Rotation Plan for COVID-19 si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee dalka. dhammaan hay'adaha dawliga ee ku shaqada leh howlaha garoomada diyaaradaha dalka inay si dhow u wada shaqeeyaan arrimaha duulimaadyada dadka imanaya si loogu diyaariyo jawi caafimaad qab ah loogana taxadiro faafitaanka cudurka COVID-19. waxaa la farayaa wasaaradda caafimaadku inay sida ugu dhaqso badan u soo diyaariso habraac lagu hubiyo badqabka dadka ka imanaya dalka dibaddiisa isla markaana lagaga qaadayo baadhis rasmi ah marka qofku uu soo dego. qofkii COVID-19 laga helana lagu karantiilo iyadoo uu qofkaasi jeebkiisa ka bixin doono qarashka karantiilka haddii laga helo inuu qabo COVID-19 oo uu ogaan u yimid dalka isagoo iskoog xanuunka. waad mahadsantihiin. waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed ka rajaynaynaa inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo habraacyada ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya. aad iyo aad u mahadsantihiin.